وأنا وركسن دتك ندامنا يوم مركز توا شوكتان هالكني وصومالي أمريكان تي في ونسيت توصل ديك السوق بدون نستوي هنا كوي على مقالة مينيابوليس قبل مينيسوتا dalka Mareykanka waxaan leeyahay Soomaalida nimanka hayga aasina deeman ku leeyahay haday dhintaan hayga aasina deeman ku leeyahay la dhaxweynayo speaker-ku waliba lama aasi karo intaan deeganka ku leeyahay taasina hadda wadayaal waxay ahayd qayladaan ka soo yeedhay Faadimo Jibriil Ducaale Faadimo waa hooyo Soomaaliyeed oo muddo ka cabanaysay guri ay ku lahayd magaalada Baydhabo oo uu ka qaatay sida iyadu ay sheegtay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe hase yeeshee aan warkeedaasi dhag jalaq loo siinin in badan baynu daawade maqalay dad ka cabanaya guriyo laga qaatay xilliyadii dagaalada sokeeye ay Soomaaliya ka dhaceen guriyahaasina waxay u bandaayeen magaalada Muqdisho dadka ugu badan ee guriyaha xooga ku qaatay xilligaasi waxay ahaayeen ama ay u badnaayeenba ragii dagaal oogayaasha ahaa iyo dad hubeysan oo iyaguna xoog ku qaatay dhul iyo waliba guriyo soddon sano in ka badan ayaa hadaba ka soo wareegtay xilliyadaasi boobka guriyaha dhulka beeraha iyo hantida dadkaba markaasi lagu mabay ee la qabsaday baldaawadayaal in yar aynu ka dhigaysano taariikhda guriga Faadimo Jibriil Ducaale ay Baydhabo ku lahayd ee ay sheegtay in uu ka qaatay oo xoog kaga qaaday Sheekh Aadan Madoobe oo isagu ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya aniga waxaan deganaan jiray Baydhabo adduunku intii aanu kala faqoqmin oo kala cararin gurigii aan ka iibsaday Baydhabo dhowr iyo 20 sano ka hor reerkii markaan ka iibsay reerkii Talyaaniga qabtay ninkii waa dhintay hadda islaantii oo aqligii ka tagay baa nool oo la hayo markhaanti ima geli karaan dadaan qof aan aqal qabin laakiin waraaqahaygii baan haystaa waqtiga waliba Talyaani ku qoran waayo xafiisyadoo dhan af Soomaali kuma wada shaqeynayeen markaa nootayadii aan kaas ku kala iibsanay Talyaani wax ku qorays af Talyaani way igu qorayaan halkan aan ku haystaa waxa ay noqotay gurigeeyagii markii la ka soo kala qaxay anigu markaa la qaxayay Mareykan ma jir reerkayga oo dhan haddaan Mareykan jiray oo la kala qaxay markaan soo noqonay waa ku noqon kari weynay Baydhabo waayo qabaa'il baa loo kala qaxay sanaag baan aad haddaanu aadnay anagu aanan war u ahayn gurigii ninka speaker-ka baarlamaanka oo Aadan Madoobe la dhaho baa gurigii ku habsaday oo qaatay oo ilaa hadda haysta haddaba talow muxuu aaminsan yahay Sheekh Aadan Madoobe bal isagana doodiisu maxay tahay muxuu rumaysan yahay bal aynu isla Faadimo ka dhigaysano isagu wuxuu leeyahay waa laga yaabaa inuu waraaqa beena sameystay laakiin wuxuu leeyahay islaantii reerkii aan anigu ka gatay buu leeyahay baan ana ka gatay ma garan haddii la eego 75 iyo wixii ka dambeeyay ma bay joogin reerkaas wadanka ma joogo xaguu ugu tagay Italy u maleynay inuu ugu tago ka gatay ka soo gatay ma u maleynay inuu ka soo gato ama arkayba waxa jirtay niman yiri reer fiido baan nahay gabadha Amina fiido baa la yiraahdaa Amina hebel fiido heberkii ka horeeyay ma xusuusto Amina fiido la sanamkeedu fiido way niman iyaguna fiidowgaas ah oo laba ah oo uu qaad malaasiyay baa lagu yiri idaacada keeno yiri ka qabta oo yiri anaga ka iibinayo walaasha ayana wakiilatay ma garad marka taana ma cadayn karo waayo qof waxay iibisay mar labaad soo iibin mayso waliba iyadoo dhul sharci leh joogtaa kuma dhacdo inay gurigeeda laba jeer iibiso waa hagaag haddaba wadayaal si arintaasi aan wax uga ogaado ayaa waxaan raadiyay maalmihii u dambeeyay markhaatiyaasha nool ee iyagu wax ka ogaa arintaasi guriga Baydhabo ama goob joog ahaa gurigaasi oo ku yilay Baydhabo
faadmo jibriilna ay sheegtay in sheekh aadan madoobe uu ku habsaday oo uu xoog kaga hay anigoo ah Cabdullaahi Cali Cumar kujira kuna nool Finland magaalada Helsinki waxaan cadeynayaa guriga ay faadmo jibriil sheegatay ee ku sheegatay sheekh aadan madoobe gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliyeed inay gurigaasi ay leedahay maadaama anaga hadda ay tiri anaa lahay laakiin aniga waagaas waxaan u haysanay maadaama dad yar ahayn naag wax maba laha kartee odaygeeda Cabdiraxmaan ayaa iskala korneelka beedhab Cabdiraxmaan ka weyn guriga waxaan u naqin Cabdiraxmaan ka weyn anaga way gurigaas ku jiro guriga adigu indhahaaga ma saartay indhahayga saari gurigaas aqari adduunyo ana li cadaabaha waan habeenan saxanay aniga iyo yar Xasan Suba Roble li yiraahdo traffic macdaraha oo hadda nool oo xamar joogo oo Madiina ku nool markii ugu dambeysay ninkaas aan soo socon waxaan aragnay habeen jimce ahayd maadaama saacad dambe in Roble ay subaxda jimcaana waxaan diidinaynay haddaan xaafadda seexana in subaxda shaqo noola diro wax le noolagu diro ama hoola noola diro ama kii kale ii sheego oo qiraanka lo'da raaci bax lo'da geyn dhahan waxaas dhan jimca waa iskool malin dugsina malihine mahad iyo guduudow iyo diiri cirbad aragnay oo guriga u socdaan maadaama diiri cirbad furaha hayay waa raacnay waa seexanay habeenkaas shanteen gurigaas wada seexanay oo Cabdiraxmaan ka weyn leh oo guri hatta guriga wuxuu ahay guri aad u qurxan oo kale arag gudihiisa daar oo nidaamsan okay gabadha laga iibsaday ee Soomaaliyeed ee ninka Talyaanigu qabay iyada ma taqaanay faadam fiiqo aniga برما المتارا وحن كل تدوكسي سكول الواح سكول الواح كسب سن أو فاميلي سكول فاميلي اللي بيجري مركي كعنكا وحنا أبدلي دميسك دبيت أو ناجا مركي تم حرقان كبريتين لكن واجا سأرك جري فارم فيكو إنك سعدانك ماشاس إنه يوديين الوريغو أو أول وشقي أيكو أجيالي دنا كلام جد أو حوارها الغدا منها oo salaamay diyaar lagu siinay miyaa warqudii ayaa jiray intana masiirka ka xigay dhinacan kalena waxa ka xigay Shaleem Lantieri xabsigan meeshan oo ka soo ayuu ka xigay Cabdullaahi ku jire maanta waxaad marxaati ka tahay marka in guriga qoyskaas Cabdiraxmaan iyo Faadimo inay iibsadeen oo ay ka iibsadeen gabadha Soomaaliyeed ee ninka Talyaaniga qaba Faadimo fiiqo inta marxaati baad tahay أنت مرقاتك جورجس إن دتكس لهاين وانا أجين دتكرر بدو النول وإلهي كعب سنة يا جورجس عبد الرحمن كون ليه ولا أجي جورما إلهي كعب سنة جورما كوجو رئيسي شيخ آدم مذوبة وجورجا فريس ستة أودجن آدم مذوبة ولا جورجس أسودجن ما أركن أنا جالس عبد الرحمن اللي هم بدو كسوري حمد سوري أوكي عبد الرحمن أسوس كلا عبد الرحمن حتى مسودجن وإجارة معلمين دكسي كو يتبنى الجناي معلمين وكو إجارة فاطمة جبريل دعاله يي باقو دريسا أما عدسي هالكن وقود بنيسا محيسة مدحوين حسن الشيخ محمود أي ستوصة ولا لاهي waxaan u dirayaa horta nimankan iyo gabdhahan baarlamaanka ku jira ninkan horjoogahooda ah inay iga qabtaan iyaga vote iyo cod leh maalin walba isagu iibkeeya vote-kooda waxaad yeelaysaa ma leeyahay dad Soomaaliyeed yihiin dhaqankii iyo diinta kama dhamaan ma garat waan fahmi karaa duruufaha jira laakiin waxaad ii samaysaan inteedinaan kala yaacin oo kala tegin meeshaas waqtigiinu dhamaan ninka iga qabta idinka horjoogo idin yahay shaqo kale ma haysto hadda idinka horjooganimadaas shaqadiisa speaker-kooda weey iyagoo kala horaa marka ninka idin kala horaya waa qaban kartaan iga qabta oo gurigaygii haysiyo intaasaan ka codsanayaa iyaga madaxweynahana waxaan leeyahay waxaanu aday kugu dhamaanay magaxumo kugu tahay aadan madooba aan ka hadlo laakiin markasta waxa oranayaa meeshu miyaanay madax lahayn
xasan sheekh inuu madaxweyne yahay caalamku waa la ogyahay waxaan leeyahay madaxweyne inta isku xishootaan adigoo saaxiibkaa Aadan Madoobe waxayga ii soo celiya waliba madaxweyne waxaan ka codsanayaa war haddaanad ka qaadi karayn inaad ka qaadi kartid ba u malayn maayo oo ka yeeriyo soo bixi laakiin hadduu ka diido dee waxa isku darsataan waxba isku leedihiin aniga waxayga guriga iyo iibso adigu wasiya dar adigu iibi guriga oo xalaale laakiin gurigayga isiya anuu miskiinada islaanta abaan ahay ilaahay ka yaabo waayo aakhira adiga aan ku haystaa dawladda oo dhammaan haystaa speaker kan haystaa kulligii waa idan haystaa aakhiro ugu dambeyntii markhaati Cabdilaahi Cali Cumar ku jire muxuu talo soo gudbinayaa Sheekh Aadan Madoobe Faadma Jibriil maamadaas maanta khaatibay taagan tahay hadalkii ugu dambeeyay ee aad dhegeysatay laga yaabo adiguna wuxuu ahaa inay tiraahdo ma saamixin Aadan Madoobe lagamana aasi karo ilaa uu waxay soo celiyo gurigiina adiga markhaati ka ahaa labadoodaba aad yaqiinay Sheekh Aadan Madoobe haddaan kula fariin u dir maxaad u soo gudbin lahayd Sheekh Aadan Madoobe waxaan dhihi horta maanta waa adduunyo waagaan gurigaas Cabdiraxmaan lahaay ayaa Sheekh Aadan Madoobe dhici doona qof islahay horta ma jirto wax kasta adduunku waa dhici karaa waa adduunyo maanta dabada laga rabay aniga waxaan leeyahay Aadan Madoobe Sheekhna waa haystaa qaaluhu iyo qulaanka fas isku meel ma galaan adigoo Sheekh magaca Sheekh wadatid inay islaanta maanta oo da'da ah oo maanta kugu haysata gurigaasna ilaahay hadii laga cabsanaa dadka odayaasha oo ama dhalinyarada oo hore u badatay waa ogin inay leedahay islaanta Faadama Jibriil يعني waxaan kuula talinahay Faadama Jibriil maanta basoo guulaysa Kenya kama soo guulaysa lacag xaraan waa haystaa xaraan kuma dhaantay ka gado islaanta iska qaarajin lacagteed faraha ka saar gurigaasna saa u malkisid kullee ileen waa lacag maanta kuma yaro inta dil rabo maanta laakiin awoodan aad sheeganaysid ilaahay adduunyo aakhir kugu cadaaba Sheekh Aadan Madoobe aniga taasaan kuula talinaa Sheekh Aadan Madoobe haddii aan Faadimo weydiino Faadimo Jibriil ducaale Sheekh Aadan Madoobe hadiiba tii alla u timaado oo uu ka geeri horeeyo maxaad oran lahayd Faadimo waxaan leeyahay Soomaalida nimanka hayga aasina deyn baan ku leeyahay haday dhintaan hayga aasina deyn baan ku leeyahay lama aasi karo islaamka qof deyn lagu leeyahay saasaan leeyahay madaxweynaha iyo speaker waliba lama aasi karo intaan deynka ku leeyahay waxaan jecelnahay daawadayaal in farintani ay gaadho madaxda iyo mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya oo hormuudka ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si toosa waxa isagana farintani aad ugu gudbin doontaan gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe golaha shacabka golaha sanadka iyo cidii kale ee Soomaalinimo markaasi ugu dadaalaysa in xaqa dadka ay isku dayaan in ay u soo celiyaan oo ay dulmiga ka fogaadaan waxaan rajaynayaa Faadimo Jibriil ducaale iyo Sheekh Aadan Madoobe oo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya in arintooda ay ku dhamaato si qurux badan oo nabada oo dib ugu soo celiyo wixii ay isku afgartaan ee heshiisa Faadimo Jibriil ducaale aniguna daawadayaal waxaan leeyahay sidaa iyo nabad geliyo